qadka telefoonka alo. السلام عليكم. Calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sheekh Sulu waa ku salaam Axmed waa London jooga. Waa gartay. Waxaan rabay inaan ku weydiiyo insurance gaariga oo kale. Naam. haddii sanadkii oo kale aad bixinayso tusaale ahaan oo installment inaad u bixiso aad rabto. qiyaas ahaan waxay noqonayaan 260 oo kale. sorry waxay noqonayaan 220 oo kale sanadkii bilbishii. Waa gartay. 220 kaas marka waxaa saaran insurance haddii aadan rabin waxaa saaran interest haddii aadan rabin interestigaas oo sanadkii installment aad u bixinayso bilbilan u gala haddaad tiraahdo 260 aan saaran marka macnawiyan marka tan oo bilbilka oo ay ku leeyihiin interest ma saarna taasaa oo interest saaran sababta 260 oo kala bixinay haddii laakiin sanadkii aad tiraahdo installment u bixinayaa oo 230 way ka aqbalayaan laakiin interest saaran oo lagu sheegay marka waxaan rabay macnawiyan Google badan oo ku sameeyay culum badan oo aan Soomaali ahayn oo waxaan arkahay midaas xoogaa yar la qaadan karaa haday interest saaran tahay xitaa marka in badan aan rabay inaan ku soo waa ii suurtagelin masalada beeca oo bitaqsiidka ama beeca waxaan leeyahay oo ah kaash hada ku bixinaysan 120 way hadii aad bil kasta bixinayso waa kaashka kale way hada bixi waay joogtada u bixinaysid hada hal sano bixinaysid wax waa beecaas waa banaan yahay oo beecateen ma soo galayo waa ku banaan yahay in qofka oo shaygiisa uu ku sheego waxa daran lacagta dambe oo yirin sanadka la bixina in hadhow isbedelin ayaa asal ah beecaas hadda dii lagu sheego hadda dii lagu sheego tan sanadka waa la bixin karaa hadda ritid bilbil oo bixin kartaa bixina isma bedelayo laakiin haddii ay ku sheegan ay ku yiraahdeen interest saaran oo laakiin adiga ay ku jaban tahay midii aan interestiga aan saarneen ay qaali tahay tan waxa la qaadanaya Soomaaliya ma tan bilbilka hadda daartid waa markasta tan bilbilka oo bixinaysa ka qaabsanta sanadka macruuf way safiican cagsi u sheegtaa hadda si aan shaqo maleena tan bilbilka ayaa wax saaran yahay safiican taas waa bixin kartaa maadaama lagu sheego lagu yiri fiir iyaga magac yaramaan u bixin karaan magac interest dhahan laakiin hadii sicirka ku sheegay ku yiri bilbilka intaas way sanadkan intaas way tan bilbilka ay badan tahay ay isbedelaynin baacaas waa banaan yahay wax dhib marka tan raqiiskan qaadanaya qaada tan raqiista tan labada taariikhda qaado oo ku banaanta maadaama labada beecba hadda xaqta lagu sheegay ada kala dooranay safiican aad iyo aad waa maadsantahay ma sha Allah dhinaca kale loo qad telefoona jira dayib marka xasadka calaamadihiisii ayaan wadnay marka ninkaas halo halo naam السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سولي وانك سلامي. بارك الله فيك أخي. waxaan rabaa inaan laba su-aal ku weydiiyo. tan koowaad su-aasha ugu horeysa waxaan ku noolahay wadamada mid ka mid a wadamada Yurub lacagta caydha marmarka qaarkood way soo gashaa lacagtaasi ma xaaraan baa mise waa xalaal lacagta ceyrta xalaal miyaa ma ka wada waa gartay su-aashayda labaad aniga iyo xaaskayga diinta islaamka waan isku qabnaa laakiin dhaqanka wadankan iskuma guursan marka sidaasaan u wada nool lahay su-aashaasna waxaan rabaa inaad iga kaa fitirto insha allah بارك الله فيك قدك تليفونك الو طيب اخيو اما مساله مساعداتك اما عيرتا ارتو حلال وي hadii aad adiga xaraan aku aad wadada u maraysi xaraan ahayn maxay shay waxa xalaal ka dhigo iyo xaraan kasbigeeda ka dhigo si adiga kugu soo gashay ay shaygu xalaal ku noqdaa xaraan ku noqdaa marka dadkan iga go'aan gaaray heshiis inay dadka kaalmeeyaan ceersiyaan laakiin shuruudo leeyahay ninkan markuu hore uu yahay xaq mu leeyahay maxay yeelan in shaqeeyo ceer la si xaq ma laha wadanka sidii qaanuunkooda qoray marka in adiga shaqaysid aad tiraahdo ceerna waa ka qaadana iyaga waa ka qarina ama ilmaha ii marsuufa sabrida naqana dimbi waa taas ma banaan maxay wadada u martaa qaldan laakiin haddii dadka aad otorsayt u ahayd xaq u lahayd arintaas oo kaalmo u baahan tahay kaalmada ku siiyaan waa ka xaji kartaa waa cuni kartaa waa cabi kartaa wax ay dhibaysa ma laha bas wadadii oo lagu raadinayo oo sax ahayd le ku dalab
wada qaldan ha ku dalbin adoo waddan kale ka dhiiban xaggan wax ka qaata inta ha ka qaadan adigoo jiraneen ceer ha dalbanin hadhin jirre ha laga siiyo disability ha qaadana iyo waxaan qaadana incapacity waxaasaan qaadana dembi wey maxaa yeelay waa qayaantay dariiqadii kugu soo gashaa been ku sheegtay laakiin sideeda kale tan caadi kugu soo gasho iyaga meeshay ka keeneen wax nooguma jiro ama xaaraan ha ku keenaan ama xaaraan ku keenaan adiga hadiyay ku siiyeen hadiyadaas marka waa la aqbalaa haddaa sheegnay ti christmaska hadday camal hadiye ay bixiyeen ee qaanuunka ay ku darsadeen marka masalada kale oo ahayd caqdiga islaamka anaga kaasa isku qabtaan waa sax hadday jirin shuruudo kale oo waddanka loogu baahan yahay oo xuquuq ah inaad sheegatid oo ku muhiim in waxaas is sheegtaan oo aad isqortaan maxaa yeeley xuquuq badana ku heleysaan xuquuq badan gabadha kuhel adiga a ku heleysaana jira laakiin nikaaxiina xalaal ma wuxuu ku noqonaya caqdigaas islaamka keliyu xalaal ku yahay oo qof dad ilmaha isku dhashiin waa xalaal maadaama caqdiga islaamka isku qabtaan nacam qadka telefoonka wax ma jiraan filaya marka labada xadiiska da wuxuu ley marka nin ilaahay maal siiyey xasidkaan ka hadlaynay nin ilaahay maal siiyey oo maalkaasna uu xaqa ku bixinayo kaasoo kale ilahay maalkaas isii waa dhigi kartaa iyo wuxuu yihi ninka kale warajulu ataahu llahu alxikmata fahuwa yaqdii biha wayaclimha nin oo dadka ilahay xikma siiyo dadka baraayo ama cilmi siiyey riwaayad kale waxay qur'aan ahayd eedana oo qofka uu baraayo uu ka faa'iideysanayo walidalika mucaawiye ayaa waxaa laga haya wuxuu yihi kulu naasin istaiic nacam wuxuu leeyahay dadka dhan kula naas astaiic an urdihi u yihi dadka dhan waa raali garayn kara ilaa ninka xaasidka maahane xaasid nicma kaas wuxuu yihi fainahu laa yurdihi ila zawaalaha wuxuu rabaa u yihi nicmadeyda inay iga suushilo raali ku naqana maahane aniga raali qadka telefonka halo qofkaas waa ka go-an filaya asagana nacam marka halo 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 ha sheekh suulere waa ku maqlaa weydii su-aasha akhi ustadi waa wiilka day oo muqdisho kaas u ahay gabadha kaala hadlaya arrintii oo 2004 nikaaxa yani xaqiiqad dadka marka laga hadlo anigu marka imaaday oo aan arkay adiga markaad aragtay markaan arkay in yani awlaad ee dhashay yani waa u wacay maalina wacay marxidaada saddexaad maraysa 2017 aan 2017 dalka soo laabtay waa u wacay waxaan dhahay walaalay waxaan yani ma ogtahay ani inaanu ku furin hay sheekaas ma ii keentay iyo waxaan dhahay walaalay fiir ilaahay ka cabsaanaa diinta islaamka aa ku dhalatay xaqiiqdii aniga hadda inaan ku furo diyaara waxaan dhahay khayr aan leeyahan dhahay iyo xaafi caruur laakiin adiga yani aniga miiga amaqaad sababtoo hooyaday waa taqaani aabahay waa taqaani hooyadii aabbaha ma gabadha maxkamad ma fasakda mase aqoonta waxaa ka daran horta maxkamad ma tagtay su-aasha taas wey meelna kuma hayo may weydi arrinta aniga wadaalka waxaan ku yidhi arrintaas qadaa inay u gala wey hadda adiga la ku dhegeysanayna anaga mogtahay dhinaca kale laftigiisa ma inaan wanaajiyo ana waxeeda u toosaana rabaa heerka caruurteeda iyo waxeeda maya wanaaggaas dariiqay umare kaa qaldan wanaag waa la rabaa laakin wanaagga naftigiisa wuxuu rabaa marka hore in dembiga in lagu cadeeyo maho intaad wanaagga aa sheegin adig marka labadii dhinac la dhegeysto waa qaaligu akhi qaaligu utaga aniga hadda xukun ma sheegi karo ayadan hala dhegeysto bal waxay sheegayso waa laga yaabaa warqad fasaq inay wadatay ku diiday oo lahadhow markii dacwo ay timaa warqad soo baxdo markaas gabadha xaqa markaas qaaliga furaa la qabsanaya iyada ma la qabsanaya markaas qaaliga fura dembiga iska lahaanayo mawduuca nan inay gasho iyada ma rabto waxay leedahay mar walba barnaamijkan ha igelin telefoon dhan igama qabanaysa anigana waxaa raba inaan wax u soco qofka raadika ma lahaba oo inaan wax u soco firi dad qaraabo u dir dad u dir hadda waa hooyada taqaana hebel taqaana dhowsa ordaas dadka u dir insha allah akhi qaadka dhinaca kale alo qofka markuu telefon soo diraayo tvga haka fogaado ama iska gaabiyo si uu u ogaado inuu markaa qoolka saxda uu ku jiro markaa alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakatu ilaahay khayra ku siiye mala hadli karaa sheekh suudi ha saa kula hadlay sheekh suudi miya sheekh suudi sheekhana maxaa rabay inaan ku sheego nin baan beri lacaga maahi waa garta
ninkii wabay dafiray cidnana lamay joogin markii la yiri dhaarana kitaab buba ku dhaartay adeerow sheekada bal ka waran nacam saas waa maadaama adiga lacagta amaanaysa ada cadeen lagaa rabaa waxay ahayd aniga ilaahay maadaama cadeen ah haysin asaa la dhaarinaya bes wey hadduu marka uu yimiino qamuus hadduu yimiino qamuus dhaarto in meesha kaga hartid waa adig asaga iyo rabbigiisa ku daa lacagteedi saasaa ku dhaafa haddaan habaaro ka waran ya haddaan habaaro ninkaana ka waran nin been sheeg ku dhaartay habaar ma u baahna dhaartaasa ku filan bisa dawaaya sheekha ما شاء الله بارك الله الو 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 qofkaas waa ka go-aan filaya asagana الو qofkaas waa ka go-ay طيب waxaa la yidhaahaa qofka xaasidka ah 5 cuquubo ayaa galaysaa la yidhi intii qofka kaleba uu xasdaayo waxaan yidhi qofku xasdaayey wuxuu ilaahay u qoro waa helaya kaas ma ka gooyi karo nicmadan ma ka zuulin karo waxaa la yidhaahaa awal waxaa kamid ah cuquubaadka oo intuu ninka xasdinba gaarinba waxaa la yidhi qamu laa yanqatic maantana murugo ku jira maxaa maantana hadda adiga dadka aad nicmadood daba socoto dhib oo dhiigga ku koraayo qamaa ku jirtaa iyo waxaa ku jirtaa adagaaba cudur kugu dhacayo maantana cudurka maka bixiysid hamiya kugu jiro maxaa dhacay maantana wax xisaaba ku jirtaa reer hebel meeqay wasiiray heleen reer hebel muxuu asaleen hebel muxuu helay hebel cunugi meeqa cunug loo dhalay wax adaaba dhiig karaa kugu dhacayo marka qamigaas horta kow waa leeyahay cuquubo adduunya waa layidhi kow laba waxaa layidhi cuquubada kale oo qofka oo ku dhacaysa isagana waxaa waye musiibatun laa yu'jar calayha musiibo oo ajar oo ka helayna ku dhacdaa la yidhi maxaa yeele masaa'ibka qofka marku uu ilaahay cudur ku rido oo ama uu wax ku dhaco oo yidhaha alxamdu lilahi uu yidhaaho waxa ilahay wuxuu leeyahy bedelkeeda la siiha ajra lagu bedelaya ilaa xaasidka maahane xaasidka wax xasdaayo musiibada ku dhacdo oo cudurkaasi waxaas ku dhaco ajirkuma helayo maxaa la saas ku rido dad kaloo xasday oo ilahay waa ogsoon yahay ilahay kama qarsoon waxaa kamid ah sidoo kale madmadatun laa yuxmadu calayha aydan shalaay wuxuu ku jiraa la yidhi oo weligeed macnaha uu kasoo laaban karin qadka telefonka halo halo ha waxbaan rabaa inaan ku weydiiyo telefon aan kaa soo wacay ya waxbaan rabaa inaan ku weydiiyo telefon aan kaa soo wacay ha telefonka markuu barnaamijka aad kusoo celi kan laftigiisa waa lagu siinaa marka shaksiyad adaan kula hadla soo ma markaas la markayga lagu siinaa khaaska ama anaa shaksiya ila hadlaysa insha allah insha allah asalaamu calaykum calaykum salaam dhinaca kale halo halo عليكم calaykum salam waraxmatullah barakatu رسول الله ha سؤالك ودينية haye طير الله كسي weyd akhi waan shaqay jiray berigii hore caruurtana waxaa ku qaadir lacag yaroo la yidhaahdo muxuu ahaa maalkii credit tax credit aysa jireen child credit caruurta waa weynaatay caruurta bay kaagaaday waa iga gooyeen waxaa la yidhi 30 saacadood shaqay aan ku siinay marka accountiga aan tegi jirnaa waxaa yidhi warseer saasoo leeyahay markaas war ha isku tegin kala leexo guriga bixiyaa lagu leeyahay gurigana waa qaali halka adigu hadda aad joogto wax kaa bixiyaane ka leexdo waxay kala ku dar halkaa markay joogtay gurigii saasoo ahaa waan xanuunsaday waa ka joogsaday gurigii afrikaanada waa soo laabtay lacagti waa ku daraa shaqadeena waa ii qoran tahay lacagta ku darleena waa ku daraa arrinkaas ka waran sheekow maya haddii aad lacagta ku dartid oo guriga xaqooda ay qaataan wax dhib ma laha ma lacag zaa'ida shaqeysaa ka qaris ani laakiin ma shaqeeyo hadda ma shaqeeyo waa joogaa gurigaas ki joogaa ma shaqeeyo lacagtina waa iskaaga dirtaa lacagtana halka accountiga waa iskaaga daraa lacagta maya lacagta kanta ku dirtid maadaama ay shaqeyn ma shaqeeyo anaa ku dara sababta dhibkooda ma raba inaad doonto university inaad doonto midna ma raba anigu adaa iska jaabkaaga ka bixisaa meel kale oo ayaga oo qalad a kusoo qaadid male lacagtaas jaabkaaga adaa iskale anaa qalad jaabkaaga ma dhib male adaa u kabtid dhib male aniga carruurta isu dardarna waa bixinaa iyada shuruudood waa fulisa adiga ninka guriga degan inuu lacagtaas u bixiyo waana bixisaa meesha arti ka keen dhib male
halkaas waa ka bixi mana shaqeeyo oo qof shaqeeya maahi oo meesha doona iska aadaa ama xarabka meel kale aado shaqa ay qoran shaqana ku qoran shaqa ay qoran oo been ahaa ha shaqada hore shaqa jira weli qoran ma qalad way taas akhi wax been hadii soo gasho qalad way aan waxa qabaa aduu shaqeyn in lacagta ku dirtay guriga u deganaatid laakiin hadii been ay meesha ku jirto oo shaqa ku qoran tahay aan shaqeynin waa islaamanka hadda kuwa dhahan waa shaqo ii qor in meel kale ka shaqeysana lacag yar ii qor ama xisaabiyaha oo self employer inuu kaa dhigo lacag yar ku soo gasho waa qolooyin kaabilayaasha arrimaha lagu haastay kamid tahay maya anigu ma shaqeeyo dawladda kama qaato maya laakiin waana shaqeyn jiray laakiin maadaama guri lacag ku dar ku yiri guri lacag waa ku dara anigu sababtoo ka yeeli maayo niman shaqo ka yeeli maayaan ma shaqeeyo waa cayl adaa soo ma maya shaqo ma baahnid qofka hadduu guriga degan yahay fiiri adiga maadaama aad guriga aad degan tahay guriga ku kab lacag ama guryaashan guryaha noocyo badan ay leeyihiin guryo waxaa jira oo kaligaa laga ijaari karaa jira oo qola aan shaqo ku keenaynin oo waxbaas akhi ama salaada waxaan ku talin qolada haddii been soo gashay khatarta leedahay qolada community-da bal arrimahaas kala tash insha Allah qadka dhinaca kale hallo qofkaas waa ka go asagana hallo الو waa ku maqlaa شيخ هدى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سلمية. waxaan raba su-aalan ku hayaa brother waxaan ku weydiin lahay hooyo oo wiilkeeda inay bac ku xirtay ay dirisna dhigtay ya markuu weynaado hooy ahaan ma u sheegi kartaa ya waa sheeganay maxaa dhahay caloosh intuu ku jiray dhibkiisa ma dareemayno laakiin anigu oo hadday daayacda ka waran oo isagoo taas ilaahay ku xisaab wiil cunuga ma ku xisaabi karkaa taas ilaahay ku xisaabanayo ninkii xuquuqda ilmaha dayaco ilaahay ku xisaabtana laakiin adiga mar kasta hooyadee waa i dayacday iyo aabbahe waa i dayacday xuquuqdooda kaagama harayso mar kastoo lagugu leey xuquuqda insha allah dembigay hore u gashay micnaha waxa waaye taas ilaahay iiday u taallaa adiga waalida lagu yahay xaqaaga gudo haddii kale hadhihin iida waa xumaatay ana waa xumaan hadhihin marka xaqeeda sii xiriiri naxariisteedii kaa rabtaa hooyada wax sahlan maaha waxaa laga yaabaa naftigeeda duruuf inay jirto waxbaa jiray waa xanuunsanaan kartaa markaas qof xanuunsan ay ahdaa laga yaabaa cudur daar waalid weye 9 bilood caloosha kugu soo wada abaalkeeda ma gudu karto markii laga soo tago wax kasto marka shaydaanka ku sawirin hebel iyo ay tuurtay iyo waa duruufaha qofka duruufo mari karaa gaf waa ka dhici karaa laakiin abaalkeeda ha ka dhigin inaad goyso hooyada sida u xiriiri jirtay kadar u xiriir insha allah baaraka allah fi akhi waxaan kusoo khatimaynaa su-aashaas ugu dambeysay su-aalaha tii afaraad oo qofka oo xaasidka ku dhacay waxay tahay carada ilaahay xaasidka dadka xaasida carada ilahay ku dhacayso tan shanaadna waxaa la yidhi baaba tawfiiq dhan oo ilahay ka xiraya tawfiiq ilahay maantana xasidkaas ugu jira asna waxa ma yeelanayo ummadii xasidkaas ugu jira ilahay xasidka naga hayo waqti su-aashaasi ugu dambeysay barnaamijka wax haddaan qalday naftii iyo shaydaana ka hadda daasaxa tawfiiq ilaahay subxaanaka allah waxamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayh assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu